الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخواني في الله waxaan halkan ka guda galaynaa xalaqadii labaad ee ku saabsanayd macnaha raddul buhtaan wa tasxiixu dalaalaati xasan qaybta talbiisaadka ayaan hadduu ilaah yiraahdo halkan ka guda galaynaa. waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan maxaa sababay inaan halkan macnaha soo fariisto oo aan halkan ka hadlo. waxaa keenay inaan meeshan ka hadlo waa hadallada gafafka ah ee uu ku hadlay Sheekh Xasan oo u qaybsanaa talbiisaad xagga diinta ah iyo aflagaadooyin fara badan iyo talbiisaad xagga diinta ah. aragtida marka aan ninka ka qabno waxaa ka soo hadlay walaalkan Sheekh Cabdiraxmaan Fasiix ayaa sheegay waxbana hadda kagama noqonayo. sideed ahaan waxaa la ogsoon yahay qofkii yiraahdo Allah subxaanahu wa ta'aala baan cibaado u gooni yeelayaa waxaa la budda ah inuu u banbaxayo macnaha i'tiraadaad ama mucaarado fara badan in la caayo la dhibo. taa marka diyaar baan u nahay macnaha in wax ka sheeg fara badan uu imaanayo saa wax ka culus baa la sugayaa wax ka culus ayaa la sugayaa. aydana cidna kulama tartamayna macnaha waana laga badiyaa haddii lacala ay soo gaaraan dad macnaha annaga na sheeganaya oo marka dhahay jamaacadaas aan nahay oo caytamaya haddii lacala aad aragtaan ama ashqaas dadkaasu nama mathalan amaba naga midba ma aho nagama tirsano ama waa dad ay aqoon yari jirto xaggooda laakiinse in la caytamo jamaacada dadkeeda waxgaradka ah iyo dadka ahlu ra'yiga ah waxay qabaan ma aha. jamaacadu waxay qabto dadka waxgaradka ah ma qabaan arrinkaas sida marka in loo ogaadana waan u sheegayaa dadweynaha. talbiisaadka diiniga ah baan rabaa hadduu ilaah yiraahdo inaan ka hadlo insha Allah. talbiisaadkaas oo ka koobnaan doona dhowr iyo 10 qodob hadduu ilaah yiraahdo insha Allah. dhowr iyo 10kaas qodob ayaan midba mar soo qaadan doonaa hadduu ilaah yiraahdo. caawa marka mowduuca aan ka hadlaynaa waxa weeyaan talbiisaadka uu ku sameeyey albaraa in macnaha la baraa qaato oo shirkiga iyo ehelkiisa laga baraa qaato la naco ayaan hadduu ilaah yiraahdo caawa soo qaadan doonaa insha Allah. masaa'isha waxay ka koobnaan doonaan qodobo dhowr ah ilaa 10 qodob. 7 qodob waxay ka kooban yihiin tacriifaad la tacriifinayo masaa'isha macnaha qaybo kamid ah sida mas'alada macnaha in la tacriifiyo kelmadda albaraa iyo alwalaa in la tacriifiyo macnaha baraa macnaha shirka laga baraa qaato marka la leeyahay maxaa loola jeedaa tacriifkiisa. ahlu shirka laga baraa qaato marka la leeyahay maxaa loola jeedaa tacriifkiisa ayadana waan u tagi doonaa. sidoo kale ma ansaxaysaa iimaan iyo tawxiid ma ansaxayaa aan shirki laga baraa qaadanin. ma ansaxayaa in la yiraahdo shirkiga oo laga baraa qaadanin kamid ma aha aslu diinka. ma ansaxaysaa in la yiraahdo ahlu shirki oo laga baraa qaadanin kamid ma aha aslu diinka. sidoo kale ma ansaxaysaa in la yiraahdo nabiyullah ibraahim bari kama ahayn shirkiga iyo ehelkiisa in la yiraahdo ma ansaxaysaa. waxaan sidoo kale aan ka hadli doonaa macnaha cadeyn la cadeynayo maxalka la isku khilaafsan yahay iyo daraf walba dhinac walba i'tiraadaadka u yaala macnaha waxa hor taagan oo marka la doonayo inay ka jawaabaan.
waxaan kala cadeyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo oo ku soo qaadan doonaa adilada madhabka macnaha jamaacada iyo jawaabta ay ka jawaabayso waxyaabaha ayada hor yaala markaas sidoo kale Xasan madhabkiisa iyo macnaha waxa hor yaala asagana oo sugaya oo macnaha i'tiraadka ku ah oo ka hor imaanaya qodobadaas 10 ka ah ayaa haduu Ilaahay yiraahdo ay ka koobnaan doontaa kelmadeena caaw markaan ku hormaro macnaha kelmadda al-baraa iyo al-walaa waxa ku yimid kitaabkan tahdhib al-lugha an ibn al-arabi bari'a markuu sharaxay waxa weeyaan ida takhallasa markuu gooni noqdo bimaana markuu hufmo wa bari'a ida tanazzaha wa tabaacada markuu macnaha hufmo oo uu fogaado wa bari'a ida a'dara wa andara markuu macnaha digo oo uu cudur daarto waxaana laga soo qaatay waa meesha laga soo qaatay hadalka Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay baraa'atun min Allah wa rasuulihi ay i'daarun wa indar wa cudur daarasho iyo digid oo xaq alla ka aatay al-imam ibn Taymiyyah oo fasiray asagana al-baraa hiya al-walaa kelmadan al-baraa iyo al-walaa al-imam ibn Taymiyyah muxuu ka yiri qaala wuxuu yiri wal baraa'atu diddu al-wilaayah baraa'adu waxa weeyaan wilaayada lidkeeda وأصل البراءة البغض أصل كبراءة وحويا والنعيب وأصل الولاية الحب أصل كولاية وحويا وجعيل أرن كان وحقيقة توحيدك أو الله يحب إلا لله الله يحب إلا الله إنه سنجعلان إلا الله مويانه ويحب ما يحبه الله لله وحو جعلانه الله دراديس فلا يحب إلا لله ما جعلانه إلا الله دراديس مويانه ولا يبغض إلا لله من نعي إلا الله درتيس مويانه دوح نعي هذا الكو حكي لا الفتاوى مجلد كتبنات صفحة 4 إنسانك وحال قول لي فطرة معناها كل مولود يولد على الفطرة سيدو حديثكم بها لكن أصغر سيدا اللي قول لي ودين أبياش استقليد سنة أي مركز بوحو ورقة اعتقاد كاس وحويان أما هكا كان أبياشي أما هو أساق فامهات سيدا حديثكم وها فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وحا مركا إنسان كاللغو أبوري هاي جعيلك أو جعلانيا وحا أساق أنفعي أو وحتريا إيا النعيب أو نعيا وحا دبيا وحو مركا أهانيا إنسانكم مثل راعسان مركا كواد لبضي دشي ثانيا وحو راعيا تلكيس أي قرابديسة haddii uusan helin aysan soo gaarin risaalo islaamka xaqiisa ka timid oo marka uusan ka ogaanin wax asaga anfacaya sida tawxiidka macnaha iyo iimaanki iyo haduusan ka ogaan risaalo ilaahiya uusan ku ogaanin waxa iimaanaysa qofkii inuu iska raaco qaraabadiisa iyo qabiilkii iyo tolkii inuu raaco haduusan helin risaalo markaas uu ku ogaado uu ka fahmo waxa asaga anfacaya oo tawxiidkii iyo iimaankii ah iyo waxa dhibaya oo shirkigii iyo kufrigii ah صادرت با شيخ الإسلام ابن تيمية وحو يري فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه هدي اللي أقاضه أدونكو إنو يهي مدكو فتريسا جعيلك أي ربطانك وحا أساق أنفعي وبغض ما يضره إياه نعيب شها وحا أساق نبايا لم يمكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث suurta gal ma ah macna inay u sinaadaan doonista uu doonayo dhamaan waxyaabaha dhacayo fidratan wa khuluqan xagga macnaha abuurka iyo akhlaaq ahaanba macnaha suurta gal ma inay u sinmaan wala huwa ma'murun min jihati shar'i sidoo kale macnaha ma aha mid amr xagga sharciga ay yakuna inuu ahaado muriidan mid doonaya li jamiicil hawaadith dhamaan waxyaabaha hawaadithta ah bal qad amarahu Allah waxa dhici karta inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amro بإرادة أمور دونست معناها أرن إيو وكراهة أخرى بل وحا دعي كرته قد أمره الله إن إلهي سبحانه وتعالى أمره فره بإرادة أمور أنا أرمين الدونه وكراهة أخرى متكلنا إنه دبسه معناه مد إنه قفك حق هذا دقاقه أو الدونه وراديه وكراهة أخرى منا معناها ونوعه ودبسده سيدا معناها إن توحيدك مثلا وقفك جعلاده إيمانك أي وحيابه ونكسن شركك أي إله سبحانه وتعالى وحيابه كعرانه أي كفرك أي وحي الله المعلنة ودبسده أي إيمانيسا هذا الكو حقوق ريا فتاواه مجلد كتبنات صفحة 4 بقول لحظة إياه شن قفك كبر بار مركا أسرة أما قبيل مثلا قبيلكي وكل شيء أما قرابديسي بعض مسلمين وحو بربارة يا قفكاس وينانا يا أصغر نعب شركك يا أهل كيسة
كذلك قفكي كبر بارا قبيله إيو معناها طل أما قرابه شركة معناها جعل وحو معناها أهانا يا وكبر بارا يا أسوى شركة أسوى التوحيد كان نعب أيوينانا يا قف كاسنا معناها الله أرنو عكس إسكو أول قفكي كل حبر بارا بي أجعل معناها شركة بو جعلانا يا توحيد كيبو نعيا كذلك قفكي كل حبر بارا بي أنعب شركة ونعيا توحيد كينو جعلانا يا waxaan u gudbaynaa hadana macnaha baraa maxay tahay marka la leeyahay shirkiga hal laga baraa qaato macnaheeda maxaa laga wadaa shirkiga hal laga baraa qaato waxa laga wadaa macnaha shirkiga in la naco lana faaruqo mana iimaanay macnaha nacaybka shirkiga illa ba'da al-ilm bit-tawhid illa qofku inuu aqoon u yeesho tawhid mooyane iyo inuu aqoon u yeesho shirkiga xumaantiisa iyo inuu aqoon u yeesho Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nacib yahay shirkiga markay intaas macnaha qofka isu raacdo oo Allah inuu nacib yahay uu ogaado shirkiga xumaantiisa looga khabro tawxiidka wanaagiisa loo sheego markaas macnaha iimaanaysa wixii inuu naco oo ka dheeraado oo fogeeyo baraa ahli shirki maxaa laga wadaa ayadana waa wax u baahan in la isla fahmo baraa ahli shirki waxa laga wadaa in la naco shirkiga ehelkiisa waxa lagu nacayana waxa weeyaan shirkigan ay ku dhaceen shirkaas lagu dhibsanayaa lagu nacayaa waa la faaruqayaa xiriirkooda loo jaraya naciibshaasna ma iman karo ilaa markuu qofka ogaado tawxiidka wanaagiisa mooyane tawxiidkaas ayagu ay daba mareen oo ay khilaafeen iyo markuu ogaado xumaanta shirkiga ay ku dhagan yihiin oo mumaarasaynayaan oo ku amal falayaan shirkaas ama ha noqdo i'tiqaad ama ha noqdo ittibaac shirkiga ay ku jiraan foolxumidiisa iyo maalkiisa ee meesha uu qofka dhaxal siinayo markuu qofka ogaado tawxiidka wanaagiisana uu ogaado markaas waxa iimaanaysa wax shirkigaas sida inuu ka baraa qaato oo uu naco uu ka go'o markaas iimaanaysa ma ansaxaysa iimaan iyo tawxiid macnaha inay macnaha guntamaan oo ay ansaxaan ayadoo aan la helin in shirkiga uu qofka ka baraa qaato iyo ehelkiisi arrinka ma ansaxayo in macnaha ayadoon shirki laga baraa qaadanin ehlu shirki laga baraa qaadanin uu iimaan guntamo wax ansaxaya ma aha maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baraada sidan ogsoonaay wuxuu ku xusay mar walba asagoo la xiriirinaya tawxiidka oo ku lamaaninaya tawxiidka waxaan ognahay aayado fara badan oo quraanka kamid ah tawxiid lama xuso ilaa waxa lagu laray oo lagu lamaaniyay baraadii sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri qul inma huwa ilaahun waahidun وإنني بريء مما تشركون إن كلمة إله حق لغو عابده وهل إله أوكلية أنينا بري بان كأهي ونبعهي وحا أدلو ذا جنيسان وسورة الأنعام آيات سقالي طبنات مركل في سورة الممتحنة كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذا الكي أنبياء أي قوم كوذا كويرا هذين waxay yiraahdeen waan idin ku gaalownay waan idin diidnay waxaana dhaxdeena ka daahiray cadaawad iyo buqd iyo nacayb waligii soconaya ilaa aad Allah subhanahu wa ta'ala ka waxidaan baraadii iyo tawxiidkii waa isku lamaanan yihiin aayadan waana anbiyadii la yiraahdo lagu daydo qaabkaas ay oola imaadeen baraada iyo tawxiidka halka marka waxaad ka ogaatay in mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xiriiriyay baraada iyo tawxiidka waxay aayadaha marka na tusinayaan nacaybka la nacayo shirkiga iyo ehelkiisa in uu ka laazimayo tawxiidka macna tawxiidka waxa ka laazimaya shirkiga iyo ehelkiisa inaad nacdid ilaa ayaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka waxidaan oo ayaga soo tanaazulan hatta tu'minu billahi wahda qofkii marka sheegta oo ku been hawaasa in uu iimaan sugnaanayo oo yiraahdo adilla jirta iimaan sugaysa saxiix ah iyo tawxiid saxiix ah iyadoo aan la helin nacayb la nacayo dadkii mushrikiinta ah shirkigii inaan la nicin ehlu shirkina aan la nicin buu iimaan ku guntamaya qofkii yiraahda daliilka waan u baahanahay waa faa'iido la rabee ha keeno qofka isaga adillada waa looga fadhiyaa waa waxyaabaha looga fadhiya ha keeno haduu dadaalo oo dhinac walba uu barbaarana kitaabkii Ilaahay bal ee kutubta samaawiga isku waafaqsan arrinkan in baraa min ash-shirki iyo shirki in la tuuro ehlu shirki la tuuro waa wax kutubta samaawiga ay ka kulansan yihiin mana soo helayo si kasta oo qofkaas u soo raadiyo marka labaad maxabada mushrikiinta iyo in aan la nicin oo Ilaahay dartii aan lagu nicin waa ka bixitaan uu qofku ka baxayo wilaayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala
wilaayada ilaahayna waxaa shardi u ah sida la og yahay inaad jeclaatid ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu jecel yahay aadna nacdid waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu necab yahay sida ilaahayba uu yidhi ina allaha lacana alkaafiriin ilaahay wuxuu lacnaday gaalada waa in gaalo dhan marka aad nacdid iyo ahlu shirki mar kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii aad tihiin kuwa allah subxaanahu wa tacaala jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allah haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa haddii aan raacayno nebiga ma mushrikiinuu jeclaa ma mushrikiin buu ka weli dhigtay ma mushrikiin buu raacay ma mushrikiin buu walaashaday lama soo helay taas nebiga sala allahu calayhi wasalam ilma adeertiisii bay ku kala tageen ilaa macnaha dadkii ugu dhowaa qaraabada ay macnaha seef dhex martay waa la ogyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam siiradiisii iyo dhaqankiisii marka waxaa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu yidhi asagoo ka qabraya in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii aad alla jeceshihiin aniga isoo raaca yuxbibkum allah allah idin jeclaanaya ta kale waxa weeyaan ma ansaxaysaa baraa'a ma ansaxaysaa in la yidhaahdo baraa'ada laga baraa'a qaato shirkiga iyo ehlu shirkiga ka mid ma aha asludiin arrinkaas ma ansaxayo in la yidhaahdo baraa'a laga baraa'a qaato shirkiga iyo ehelkiisa ka mid ma aha asludiin ma ansaxayso maxaa yeelay ka baraa'a qaadashada shirkiga in laga baraa'a qaato iyo ahlu shirki in laga baraa'a qaato waxaa lala xiriiriyey waa sida tii hore oo kale waxaa lala xiriiriyey nacaybka la nacayo mushrikiinta nacaybka la nacayo mushrikiinta iyo in laga baraa'a qaato ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidan aayadihii haddaba aan ku soo cadaynay aan ku soo marnay waxaa in badan lala xiriiriyey towxiidka lala xiriiriyey marka waxa weeyaan wax ansaxayo ma ay aha iyadana sida aan aayadihii haddaba aan ku soo aragnay waxaan soo gaarnay macnaha ma ansaxaysaa in uu la yidhaahdo qofku uu yidhaahdo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam kamuusan baraa'a qaadanin shirkiga iyo ahlu shirkiga dacwadiisii bilowgeeda nebiyullaahi ibraahim ahlu shirki kama baraa'a qaadanin shirkina kama baraa'a qaadanin in la yidhaahdo wax ansaxaya miya arrinkaa ma ansaxaya bal ee waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisoo la beeninayo qur-aanka tirada badan ee hadda aan ku furana istiftaaxa oo caddeeyey nebiyullaahi ibraahim baraa'adiisii dacwadiisa dhanba inay baraa'a min ashirki wa ahli ku dhisnayd qur-aanka caddeeyey oo xaniif inuu yahay la sheegay xaniif waxa weeyaan waa almuqbil cala allah almucrid camaa siwaah nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam lagu ammaanay sifaadkaas baraa'ada ah ilaa ay tolkiisii dab ku gubeen ilaa aabbihiis uu ku hamiyey inuu macnaha dhagax ku dilo nebigii sidaa beriga u ahaa ahlu shirkina beriga ka ahaa inanii baraa'un mima tacbuduun yidhi beri baan ka ahay waxaad caabudaysaan yidhi walam yakun min almushrikiin la yidhi wamaa kaana min almushrikiin la yidhi in la yidhaahdo macnaha beri ma ahayn waa waxaan ansaxaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo ka sheekaynaya wuxuu yidhi falamaa ra'a shamsa baasiqatan markuu arkay qoraxdii oo soo muuqatay baa wuxuu yidhi qaala haadaa rabbii ayaguu macnaha ku barayey haadaa akbar falamaa afalad markay qarsoontay qaala wuxuu yidhi yaa qowm innii barii'un mimaa tushrikuun qowmkaygiiyow beri baan ka ahay waxaad allah la wadaajinaysaan qowmka waxaa weye nebiyullaahi ibraahim qabiilka uu ka dhashay oo aabbihiisa ugu horreey beri baan ka ahay buu yidhi meeshaasu ku caddeeyey innii wajjahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin waxaan u duway wejigayga allaha bilaabay abuurista cirka iyo dhulka mushrikiinna ka mid ma anihi mar kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi asagoo ka xikaayoonaya waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun waqti xus uu nebiyullaahi ibraahim u yidhi aabbihiis iyo qoomkiisaba anigu beri baan ka ahay waxaad caabudaysaan ila aladii fataranii fa inahu sayahdiin marka aayaadkaasoo dhan waxay noo caddaynayaan nebiyullaahi ibraahim baraa'adiisii inuu beri ahaa shirkiga beri uu ka ahaa qoomkiisana uu beri ka ahaa ayay noo caddaynayaan waxaan hadda gelaynaa iddicaa'aad xasaan wuxuu xasaan sheegtay oo iddicaa'aadkiisa ka mid ah waxyaabuhu sheegtay ka mid ah inuu iimaan ansaxayo iyadoon ahlu shirki la nicin oon laga baraa'a qaadanin in baraa'adu aysan ka mid ahayn asludiin in nebiyullaahi ibraahim uusan ka baraa'a qaadanin aabbihiisii mushriga ahaa kadib markuu towxiidka ugu yeeray wuxuu u soo deliishaday arrimaha saddexda mas'alada ah mas'alatu listikfaar
آياتان كجرة في سورة مريم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ونبي الله إبراهيم مركو أبيس دعوة كوجتي سيدا وناكسن وجتي وأضيق يري أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إله يدي عيسى إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا آياتي هي واغفر لأبي إنه كان من الضالين أبي قدام وداف إلهي وأبي وداف وحكم لها كوى اللنصن آيات كلا كجرت في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم آيات كاسو أسو دليشدي نبي الله إبراهيم إنو سنبرك أهين آبيس أو شرك معنى آبيس أو مشرك مركو توحيدك أبيامي كذب وحن هذا أقول قلنا موقفك جماعة مسألة موقفك أي كقبته مسألة أي جماعة معناها موقفك أي جماعة كقبته مسألة وحويان إيمانك ما أنصحيه إلا بالتوحيد معناها جماعة وحي آمن سنتهي إيمان إنه سن أنصحين إلا توحيد إلا هلمو يعني توحيدنا ما أنصحيه إلا بالبراءة من الشرك وأهله براءة قادشة والله قبح الشرك أهل كيس لنعه الله درتي الله نعه لنا اعتقادية أهل الشرك وإنه قال هنا إله سبحانه وتعالى ما دام يشرك سمايان أي قال لما كجيران إنه قفك اعتقادية قفك حصة إيمان مثلا أو إيمان شيغا الإيمان بالله هي التوحيد قفك كشيغا أصل الدين وحلم ذي هي قف براءة من الشرك وأهله أهل الشرك إن لقى براءة قاته لنعه الله درتي اللوغو عراضه لقاليسية قف حصة يلم ذي قفك الإيمان هي التوحيد كشيغا أصل الدين maxaa rasuul Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay aayeen kuwa dadka ahlu shirkiga u sheegay ayagoo shirkiga iyo gaalnimada ku jira baa waxay sheegayeen rasuushu inay bari ka yihiin ahlu shirkiga oogana bari yihiin shirkigaas macnaa inta ay shirkiga iyo gaalnimada ku jiraan inta Allah qeyrkii caabudayaan shirkiga iyo gaalnimada ay gaala ku noqdeen inay bari oga yihiin cadaawad iyo nacaybna in ay weligeed joogto ahaanayso ilaa ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka waxidaan oo Ilaahay diinkiisa soo galaan bayaanka marka rasuusha ay cadeynayeen ay qoomkooda aqwaamtooda u cadeynayeen oo in macnaha ahlu shirki iyo shirkigooda la naco isla tuuro kama uusan ta'akhuraynin kama dibdhacaynin bayaanka ay cadeynayeen al-iimaan iyo tawxiid bayaanka ay dadka u cadeynayeen iimaanka iyo tawxiidka mid ka haray oo ka dibdhacaya ma uusan hayn arrinkan marka waxa weeyaan tahqiijinta tawxiidka waxa arinta daliilinaya in macnaha ay isla socdaan buqd shirkiga in la naco iyo tawxiidka oo baraa qaadashadii al-iimaan billaah inuu san ansaxaynin illa in macnaha ay sidaas la yimaado mooyaane inay tahqiijinta tawxiidka tahay waxa cadeynaya inay mushrikiintu cilmi ugu sugnaayeen macnaha mushrikiintu inay cilmi uga sugnaayeen in rususha qofkii raaca aysan wada kale u furnayn illa inuu ka baraa qaato shirki iyo ehelkiisa inuu ka soo go'o ka soo baraa qaato mooyaan alla dartiisna uu naco gaalaysiiyana arintaas ay cilmi uga sugnaayeen sidaa daraadeed kamid ma ahayn dadkii rususha raacay ambiyada Ilaahay dadka raacay Ilaahay baan u islaamay qof dhaaya ehlu shirkina kama baraa qaadanayo kamid ma ahayn waxa arinka yiraahdo qof aan fahmaynin tawxiidka laga dalbayo iyo tahqiijinta laga doonayo qof aan fahamsanayn kaliya ayaa arinkaas ku hadli kara oo macnaha sida u kalaamaya haddana waxaan galeynaa xaqiijinta macnaha la xaqiijinayo meesha la isku khilaafsan yahay cadeyn la cadeynayo khilaafka meesha uu ka jiro waxa la isku khilaafsan yahay iyo qolo walba waxa macnaha ku horgudban macnaha waxa hor yaala oo hor taagan oo marka la doonayo inay ka jawaabaan labada dhinac is khilaafsan annaga ka jamaaca ahaan waxaan leenahay nabi Ibraahim alayhi salaam wuxuu ahaa bari wuxuu ka ahaa shirkiga iyo ehelkiisa laga soo bilaabo dacwadiisa bilowgeeda اعتراضك مركا هرتاغن او مركاس جماعه la rabo inay ka hadasho waxa weeyaan inay iswaafajiyaan orahdooda nabi Ibraahim bari buu ka shirki ehelkiisa iyo aayada lagu xusay fi suurati tawba falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min inta inay iswaafajiyaan ba jamaacada laga rabaa wuxuu leeyahay sheekh xasanna nabi Ibraahim alayhi salaam kama baraa qaadanin ehlu shirkiga بمعنى أبيس أو مشرك أكموسن براء قادنين أهل شركي لغا سو بلاابا دعودي سبيلو جيدا
اعتراضك كهر قدبان أو مركز لدوني إنه كجوا وحويان شيخ حسن آياتك صريحة أو محكم أو إله سبحانه وتعالى أو كعدي إن بالله إبراهيم وبرئها لقصوا بالله بالدعوة دي سب الله وجاذا وحن آخرني قفوا الباء القرآن كيقاننا وأركيا نبي الله إبراهيم إنه بركها أهل الشرك آيات كاساوية للشيخ حسان إنه كجواب أو الرباء إنه ملجير وحن هذا أقول يا الدلالة جماعة هي جوابت أي كجوابيسه كجوابد أي كجوابيسه اعتراضك وحكو قد من جماعة الدلالة جماعة وحويان مركب كواد آيات كي عن صح حسني أو صريحة سيد آياتها إلهي سبحانه وتعالى ويري أفرأيتم ما كنتم تعبدون نبي الله إبراهيم إنه يري كورم وحنا العابد إيسان أنتم وآباؤكم الأقدمون إذن كي أبياشي النهر فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لما نوحيين عدو إلا ربك عالم كمويانه مركا لوحو يري أفتعبدون من دون الله موحاد عابد إيسان الله سكديس ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وحن وحبنا إذن ترينين وحنا إذن كدبينين أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفبان إذن إري إذن كأي واحد عابد إيسان الله سكديس ميدان عقل لهين أفل لكم توحي كل عيسى تلكيسي أو آباه وغوري ماشي مركا أوليها ما برأ قادن قومك كما برأ قادن نبي الله إبراهيم سيدا سؤال الله مركا الإلهي وحي رسوه كحكايونه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله واعتزلكم وإذن كديرانيا واعتزلكم تضميركم وحكود عيا قومك وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى الله أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله مركو كديرانا أيجي وحي الله سكدي عابدين وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا إلهي سبحانه وتعالى قفك مركو إلهي رالي قرايه وإلهي كليه ودورته إن لو قرقاريه إلهي سبحانه وتعالى ونصر سيني حتى الدليل وتمركز إلهي وولاده بي توجيها مركز آيات سورة التوبة وفلما تبين أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه آيات توجيها كجرة وحن قادنا أنك كجماعهان فهم كي سلفك مرادك يولجيدك لولجيدنا وحويان ترك الاستغفار له كتجتان ونبي الله إبراهيم لدونه إنه كتجه إنه دمداف ويديه أبيس أنتوا سنكتجين مركب معاسبها محوها عاصمهين محايل النهي يمد بملا سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسجنا مركو ويدي سنة استغفار أما أذرك يود مداف ويدينه أيضا سيدا سكالون وحنا هذا الكعدين يسلف كيبان كقديننا مفسرين أقواش هذا ابن جرير الطبري أي أقوى الريا وحير فإن قالوا فإن إبراهيم قد استغفر نبي الله إبراهيم بعد مداف ويدي لأبيه وهو مشرك حديدتك يرهدان بويري نبي الله إبراهيم بأبيز أو مشرك دمداف ويدي فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه ما هين بويري إلا لموعدة وعدها إياه بلن وأبلن قاضبه نبي الله إبراهيم وإله سبحانه وتعالى وكان أوليها إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له مركي وعداتي وعلم أوغاذي أنه لله عدوا وعلم أوغاذي أنه لله عدو خلاه مركا سبنانك كيستاغي وتركه إساقتغي وترك الاستغفار له وحونا إساقتغي إنه دمداف ويديه ابن عباس هذا اللي قصه قرني أساقنا قيمة له وما كان استغفار إبراهيم لأبيه آيادس مركا للجوغ ابن عباس كفصر وحبر الأمة يعني استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك عن الاستغفار له مركو دنتينا وكقاب صدي ودمداف ويدينته marka arintan waxay ahayd sida quraanka in badan oo kamid laga qaadanay ballan uu galay nabiga Ibrahim illa am maw'idatin wa'adaha iyah waxaana la yiraahdaa kaga dayanina nabiga Ibrahim illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfirana lak macna ku dayda la yiraahdaa nabiga Ibrahim inta kale oo dhan kaga dayda aayada qaybteeda hore inta ay sheegtay oo ah in laga baraaqaato ahlu shirki la naco la gooyo cadaawad loo muujiyo ilaa ilaahay ka waxidayaan إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك في سورة مريم نوحي سأستغفر لك ربي آيات كاسودن با waxay cadeynayaan mufassiriinta dhanna laga fiiriyo ibn Jarir al-Tabari ibn Kathir ka
baqawi intaba laga fiiriyo mufassiriinta waxay leeyihiin ballan uu qaaday bay ahayd nabiyullaahi ibraahim ballankii uu marka fulinayay ballanka marka ilaa uu ka yimaado nahyi lagu reebayo sida aan u tagi doono ma ahayn mid macnaha ku gafay oo marka caasi ku noqonay muusan ahayn hadda waxaan u galaynaa adilada xasan maxay tahay adilada sheekh xasan uu u daliishanaya madhabkiisa iyo jawaabta macnaha laga rabo i'tiraadka ku horgudban isaga sheekh xasan wax daliil oo haysta malaha ilaa suuratu tawba ayadeeda mooyane wuxuuna ku khilaafay fahamkii salafka ayuu ku khilaafay ayada xataa wuxuu soo saaray oo ka soo istinbaaday faham cid tiri aan lahaynin dadkii salafka ahaa cid tiri aan lahaynin jawaab uu u hayana malaha aayaadka sariixa ah oo mutawaatirka oo mudlaq ah aayadaha siidaysan oo cadaynayna ilaa ibraahim inuu bari ahaa ee shirki bari ka ahaa ilaa loo gubay arinta daraadeed ilaa la hamiyay in dhagax lagu dilo aayaadka cadaynaya oo nabiga ibraahim dacwadiisii bayaaminay oo quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu aad ugu qaada dhigay jawaab uma uu hayo waxaan hadda galaynaa muqaarana waxa weeyaan macnaha isbarbar dhigis la isbarbar dhigaayo hadalladan iyo nusuustan aan soo sheegnay iyo tarjiix waxa weeyaan marka koowaad jamaacada madhabkeeda waxa ayidaya kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala maxaa la kitaabkiiba waxaan ku aragnaa in uu ka hadlayo in badan shirkiga ehelkiisa in laga baraa qaato ambiyada dhan ehlu shirki inay bari ka ahaayeen nabiyullaahi ibraahimna in ugu sii xeel dheeraa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam in laga sheekeeyay nabi walba ma arkaysid nabi illa waxa la leeyahay ahlu shirkiga bari buu ka ahaa marka waxa madhabka jamaacada adii ayidaya salafkii iyo quraanka ayidaya kitaabka quraanka bal aad aan ugu tadabburna aayaadkan muhkamaadka ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كفسري ابن جرير الطبري وحيري يقول إمام المفسرين إمامك مفسرين وابن جرير الطبري وحيري كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده markuu aayada fasiray wuxuu yiri yaqulu jalla thana'uhu mukhbiran an qili anbiya'ihi liqawmihim ilaahi subhanahu wa ta'ala shanigiisa haweenaaday asagoo ka waramaya hadalkii ay yiraahdeen anbiyadiisa ay tolkooda ku yiraahdeen asagoo nooga khabaraya wuxuu yiri kafarna bikum waan idin diidno idin ku kufrinay أي أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وحان انكرني وحان كجرتان كفرين على الله كفر سن وحان دينا عبادة الله سكودي سعدك لله عابد إيسان أن تكون حقا إني حقهات وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وحا دحدنا ظاهرة عداوة النعيب أبدا ولي الجريسة على كفركم بالله كفرين على الله كفر سين درادت وعبادتكم ما سواه إيا عابدين وحا الله كسواري ولا صلح بيننا ولا هواذا وحي شيسة إيسو آيرين أما إيسو دمرين إيسو توريس دحدنا ما أهانيسو حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تصدقوا بالله وحده إلا الله كرميسان فتوحدوه أتكوحدان وتفردوه بالعبادة عبادة أدوقوني يشان نبي الله محمد أيها الله حكايانا يا الله وحيرا إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون نبي محمد بايري بري بان كاهي وحاد الله لو ذا جنيسان براءة مركة مجرد انتي كنت الله معنا قرآن كيبا سيدا أوغا الله فمن يكفر بالضاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وحال سهر مريي كبراءة قادشة الضاغوتك الإيمان بالله بألغا سهر مريي قفك اللبضاء لغا هلا أيانا اللي يدبالير لا إله إلا الله إلا أن العروة الوثقى سلفكي وحيكو فسران لا إله إلا الله مركل الله وحيري وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقت حسء نبي الله إبراهيم كوير أبيس آزر ما كي لنيسا أصنام ما أصنام بعد كده نيسا آلهة لعبده إني أراك وحنكو أركا أذيك أو آزر إيا وقومك قومك في ضلال مبين بعد عطينا تكسو كنتين نبي الله إبراهيم وحو فهمي آبه يتلكي سبعين باديوبين سياسونا كغبرا قاتي مركل وحو يرأسوا الله كحكايونيا قال يا قوم إني بريء مما تشركون تلكي جيو بريبان كاي وحد الله لو ذا جنيسان
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين كمد مي وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا sida markuu la hadlay nabi ibraahim qomkiisi ilaahay asoo ka xikaayoonay muxuu yiri fa ayul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun labada koox keeba u xaqnimo leh amni iyo nabadgelyo hadaad wax ogtihiin wax garanay hadaad tihiin Allah ka jawaabay alladheena aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amn wa hum muhtadun kuwa Allah waxiday oo aan iimaankoodii ku dheehin shirki ayaa macnaha waxa u sugnaaday baa leeyahay amni ayagaana kuwa hanuunsan adduunyada inta la joogo hadaba waxaan leenahay dadka ayagoo shirkiga ku jira ayay amni helayaan oo cadaab ka aamin helayaan adduunyadana ay ku hanuunsan yihiin miyaan leenahay waa sida ka laazimaysa madhabka uu xasan tarwiijinayo sida ka laazimaysa sidaas weeyaan الله وحو ليهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن أصدق من الله قيلا إلهي يكر النمبضا إلهي وحكر شاكسا مجرو إلهي وحو عديي دادك معناها أمني هلي إنيهين دادك الشركلان إلهي عابدي إيغانا هنونسان الدنيا دا انت لجوغو waxay ahaayeen rususha Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantood kuwa mushrikiinta gaarsiiya tawxiid iyo inay bari ka yihiin hadii aysan ajiibin dacwadooda Allah subhanahu wa ta'ala ana aysan waxidin oo aysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tawxiidsanin shirki la'aan marka aayaadka quraanka oo sida baraa'ada uga hadlaya ayaa madhabka jamaacada ayidaya waxa sidoo kale ayidaysa sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaan ognahay sunnada inay ku badan tahay in fara badan in laga hadlayo marka la islaamayo tawxiid aan baraa'a wadan in lagu islaamaynin man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'bad min dunillah harama maluhu wa damuhu hadith sahih muslim kusugan atharna wuxuu ahaa awthaqu ura al-iimaan al-hubb fillah wal bughd fillah hadithna wuxuu ahaa man habba lillah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان قفك الله درتي وحجع هذا الله درتي وحنعه الله درتي وحديبه الله درتي وحعشده وحنا ما يسترتي إيمانك وما يسترتي وحديث أسجنا حسنة وحاورني أبي أمامة الباهلي حديث صدان يا دمان حديث كلا ترى بدن والسنة كسجن سيدا كلا حديث كي معاذ بن جبل حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن الله كلي عابدان una shirki sameyn marka way tira badan tahay nusuusta wax la soo koobi kara sunnada ma waxay nusuustaas oo dhan ayidaysa oo sunnada ahadiisa sidaas u waramaysa oo albaraa min ashirki wa ahlihi dadkii salafkan ay sidaa ku fasireen qofka inaan dhiigiisa iyo maalkiisa la dhowreynin illa in laga helo al-kufru bima yu'bad min dunillahi illa gaara mooyaan lagu fasiray waxay ayidaysaa madhabka jamaacada ee mas'aladan ay ayidaysaa sidoo kale ijmaaca ayaa wuxuu ku guntamay عصمة الأنبياء من الكفر وموالاة الكافرين أنبياء إنه معناه كدور سنايين كفر إيه قال إن لقوا معناه ولي دكتور أو اللي حكسده ولا ولا شده بمعنى إلا جعل هذا سيدا كلا أئمة مفسرين هذا الذي حد عن سومرين ابن جرير الطبري هي مفسرين تكلمه أرن تاسع حجينيا أقواش أهل العلم مسألة البراءة مركل الجو هذا وحن قد قالنا هذا الله معناه أهل العلم أي كير هذين موضوعا خطرتي سله waxay yiraahdeen ahlul cilmiga sida al-imam ibn Taymiyyah rahimahullah فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه نعيب شاس iyo cadaawada iyo bar noqoshada laga baraa qaato waxa la sakadii la caabuday ki caabudayba la isla tuuro hiya umurun mawjudatun fil qalbi wa arima qalbiga macnaha jira arima qalbiga jira wa ala lisani wal jawarih iyo arabkana jira معنى إيمانك سيدا الأقيا ووح قلبك الغلاء إيمانيو عربك إيو جوارح انتبه سيدا سوكالة محبضنا أيضا سيدا كلا ووح قلبك الدقيا عربك اللغة الله جوارحنا الغلاء إيمانيو نعيب شهر لنعي أهل الشركة إيا عداوة الله إيمانيو أيضا سيدا كلا وأرين قلبك الدقيا عربك اللغة دواقيا جوارح ذين أتكفغان يسيد أهل الشركة كما أن حب الله وموالاته أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح وهو يرسل جعيلك معنى الله سبحانه وتعالى لجعلانه
iyo awliyadiisa oo la jeclaado ay u tahay arrimo qalbiga degaya carabkana looga dhawaaqayo jawaarixdana looga camal falayo وهي تحقيق قول لا إله إلا الله وأنا كدبينت حقيقة الحقيقة يهد أوقف كلها لا إله إلا الله وهو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا وذلا خالصا وأنا السجد للسجيو قلبك كإله ديجس لوجا إله ديجا جعيل والله جعلنا جعيل كاسو الله كلي أبرحترا إياه يسدلين وقلبك يسدلين الله سبحانه وتعالى سدب ومنع تأليهه لغير الله إياه ديد له ديد يا قلبك إن لوجا إله ديجا الله غير كيس وبغض ذلك وكراهته إيه أرنتا إنه نعه لبسدنا فلا يعبد إلا الله ما عبد يقفك الله سبحانه وتعالى مويان عدكله ويحب أن يعبده وحوج عليها إنه الله كلي يعبده ويبغض عبادة غيره وحونا نعيا ونبسنيا وعبادة الشدى الله غير كيس وحكي على مجموع الفتاوى مجلد كأفري طبنات صفحة الله أبغل تضاطني تضبط مركل وحيري فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه وحو إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تأمري آياتي قد كانت لكم أسوة حسنة من العسنية أي من العسنية إمامكم وحو إلهي مؤمنين تفربوا إني كد أيضان نبي الله إبراهيم ينبيذي معي سايد حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده مركزوا أي عداوة أموجيان ينعيب شو ضدك الله سبحانه وتعالى أشرك سمايا إلا الله كوحدان فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة أرنك أنتو كجوغا قفك أن حمان معناه حسنة ونكسنين حمان أن حمان سنين معناه وحمان أن حمان وأركين فتاواه مجلدك سديدات سدح بقول سدح وهذا الكاسكوية الله الفتاوى مجلدك سديدات سدح بقول سدح وهو مركا ليرا اسغو هذا الكسيوة الإمام ابن تيمية وهو الله سبحانه وتعالى نفره فقد أخبرنا الله أن نتأسى بإبراهيم وهو إلهي أمري وهو إلهي كقبري فقد أمرنا الله وهو إلهي أمري أن نتأسى بإبراهيم إن قد ينني بالله إبراهيم عليه السلام والذين معه اتبرأوا من المشركين ومما يعبدون من دون الله مركا كبر أقاتين مشركين تيوحى الله سكدس العبودي إلهي سبحانه وتعالى وحي رسوله كقبر يا أرنكاس إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وحي ابن تيمية والبراءة ضد الولاية براءة وحويان ولاية لد كذا وأصل البراءة البغض براءة أصل كذا وحويان والنعيب وأصل الولاية الحب ولاية وجعيل وهذا أرنك وحويان لأن حقيقة التوحيد كان وحي تايب الله يحب إلا الله قفك إنه سنجعلان إلا الله ما هنه ويحب ما يحبه الله لله وحو الله درتي وجعلان إنه الله درتي ونجعلاده فلا يحب إلا لله وسنجعلان إلا الله سبحانه وتعالى درتي مويانه هدو واحد جعلانه الله درادي إنه وجعلاده ولا يبغض إلا لله وسنأنعن إلا الله درادي مويانه وحو يراسوا هذا الكسيوة وهذا الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولاية سوحالة لحريريي نعيب شلا نعيو إيا عداوة الله موجينيو وحو البول عابد الله سكوديس إيا ولمن عبدهم عدي عابدي إن لقاقه لنعو لقويو لديريو إلهي وحوير أسوى خليل معناه كقبرين بالله إبراهيم بويري وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلهي وحوير أسوى كحكايون بالله إبراهيم وقت حس ونبي الله إبراهيم كوير أبيه يقوم كي سبب إنني براء مما تعبدون بيربان كأي واحد الله سكدي عابد إيسان إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون وحكي لي كلمة التوحيد ككلمة كباقي أهانيسا عاقبه معناه أولاديسا لعلهم يرجعون وحي مذين إني أصل نقضان مركل وحو الله يرى سبحانه وتعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون كورما واحد أهيدين كو عابدين واحد عابدين كورما أنتم إذنك يا وآباؤكم الأقدمون أبياشي نهر فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عدو بإيهن إلا ربك عالم كمويانه وحير ابن تيمية أصغى هذا الوطا فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام أهل الملل وحيسكوا فقين دمانتود وحسوق لي يهودي وحسوق لي نصارى دمان دينة إسلامك أهل الملل كودن وحيسكوا فقين إن رسوش أي ريبان إن لعابد الصنم
رسوش معناه إني نهيين عدة سنة معابديسة وكفروا من يفعل ذلك وحين كقال لمحكمين قاليسيين رسوش دمانتود عدة معناها سيدا سمينيس وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام قفك مؤمن كنا مؤمن ربما من نقنيه إلا كبر أقاته سنة معابدة وكل معبود سوى الله يمذ البول عابد الله سكديس مركز وحسود للشيء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده آيات كاسوسود للشداء الإمام ابن تيمية أهل الملل كورنا وحيسكوها فقين بويره إن ما رسوش أي نهيين سنة معابدة قفكنا إيمان وسن أقن تمينين إلا كبح سنة معابدة وحكستوا على سكدي العابد وهذا الكاسكوية لا الفتاوى مجلد كلبات صفحة بقول 8 وعير الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء أي الطواغيت المعبودة من دون الله إيمان ما أنصح يقفك وما أنصح وما قنتمي إلا كفق وكبر أقاته كوان طواغيت العابدة الله سكديس وحيابيه الله غير كي أي بريعين مشركين تي زمن كيس جوكتي وتكفيرهم إلا قاليسيه كما قال تعالى سيد إلهي ويري فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سيد إلهي سبحانه وتعالى وسيد ويري وهذا الكاسكوية الله الدرر السنية مجلد كتبنات صفحة كنتني سدحات وحو كلو يري إمامك رحمه الله رسالة الواجبات المتحتمات أي هذا كان هذا أنا آخرين دون كو قرنيا وحو يري فأما صفة الكفر بالضاغوت صفة أكو كفرين تضاغوتك ضاغوت ولا يقانا وحويان وحوال بقى حد كي أدوني ماذا كتلابه كلما عبد من دون الله وحوال بقى العابد الله سكديس إما بقهر لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كان ما كان من شيء سياس ابن جرير الطبري كفسر آياتها عن طاغوت كمركو كالله هذا الكيسي هو الصواب من القول عندي هذا السياس وكلاه أو آدو قيم بدن بوسو أروريا طاغوت كمركو حكو إيمان كرا دقح وحكو إيمان كرا انجد وحكو إيمان كرا قف بني آدن التقاند انت بقول نغن كرا صفة مركا كفرين تضاغوتك وحويان فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله إن اعتقاد سيد عبادة شد الله غير كيس وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم إن هذا السجدتك نعدد قال يسيد أهل كاس لنا علودد وأما معنى الإيمان بالله معناها الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وإن الاعتقاد سيد أن الله هو الإله المعبود وحده إلى إنه يهمتك العابد أسير كلجس دون من سواه أنت كسرت سكدت وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله لما نوعية العبادة أضبر احترتد وتنفيها عن كل معبود سواه عبادة لنا أدي ديد كأنفسد مثل عابد أردن أو كسر السجا وتحب أهل الإخلاص وتواليهم أهل الإخلاص وأهل التوحيد أجعلاتد كان ولدقت حريرسد وتبغض أهل الشرك وتعاديهم أهل الشرك أردن نعدد لنا علودد رسالة الواجبات المتحتمات وهذا الكاسكوية الله وحير عبد الرحمن بن حسن وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وصاحب فتح المجيد وحير أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة وحيكو إجماعين بويري dadkii culimada ahaa oo salaf leh khalaf leh saxaabada taabiciin bal aymadii diinka dhamaan ahlu sunnaha waxay ku ijmaaceen anna al-mar'a la yakunu musliman illa bitajarrud min ash-shirk al-akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa ma'adatihim bihasbi at-taqati wal qudra wuxuu yiri qofka muslimka macna qofku inuusan muslim noqonaynin أن المرأة لا يكون مسلما قف إنه سن مسلم نقنين إلا بالتجرد من الشرك الأكبر إلا إنه كدر ترمه شرك أكبر مويانه والبراءة منه كان براءة قاته وممن فعله يعد شركه السميسي إلا إن شركه كل اسمه المقطمه بور ميل تاغن معها أو شركه لنهاي
shirkiga qof baa sameynaya ama ha noqdo i'tiqaad ama ha noqdo ittibaac dad baa u ololeynaya oo dhiigooda iyo maalkooda u huraya oo shirkigiiba difaacayo calan u taaganaya dadka in laga baraa'a qaatay diintu amartay salafkiina sidaasay u fahmeen oo saxaabo leh oo taabiciin leh oo ayma leh iyo dhammaan ahlu sunnaha wa buqdihim wa mucaadaatihim in loo caroodo إلا النوع وبغضهم إلا النوع ومعاداتهم لنا علوبه بحسب الطاقة والقدرة هذا معناه سيد أود أيتين إيه وإخلاص الأعمال كلها لله أعمال شدنا الله برحتره هذا الكوعكية لا الدرر السنية مجلد كلابي تبنات صفحة شنبغل أفرتن يشن مسألة مركعة استضاعة بالغا يا بعض dadka qaar inay si u fahmaan mas'alada istidaacada waxa isweydiin la horta khilaafka muxuu ka taagan yahay khilaafku wuxuu ka taagan yahay martabada uu ku jiro baraa'adu martabaday ku jirtaa qofka hadba martabada ay ugu jirta baraa'ada bimaana waxaan hadalka u jeedaa baraa'adu ma tawxiidkay kamid tahay oo aslu diin ay soo galaysaa mise waa waajib kamid ah waajibaadka diinta qofkii yiraahdo baraa'adu waa aslu diin macna qofkii yiraahdo baraa'adu aslu diin kamid maaha wuxuu baraa'adii marka ku daray inay tahay furuucda sharciga furuucda shariicada iyo ahkaamteeda oo markuu doono qofku uu qarin karo markay banaantahay midalan in la qariyo furuucdii uu iska qarsan karo hadii se qofka uu arko baraa'adu inay uu i'tiraafiyo macna haduu qofku rumeeyo baraa'adu inay tahay aslu diin oo tawxiidka ay kamid tahay waana sida saxda ah sida xaqa waxa weeyaan baraa'adu waa min asli diin sida aan soo sheegnayba haduu qofku marka sida rumeeyo tawxiidkii uu marka ku daray bay noqonaysaa waxa iman karta marka marar uu qarsan karo qofka waa goorma waqti baa jira qofka ay u banaanaanayso in tawxiidkiisa uu qarsado oo waxaan ogsoonahay quraanka sida mu'min ahlu fir'aun oo kale ninkii mu'minka ah reer fir'aun waqala rajulun ilaahi kaga xikaayoday mu'minu min ahli fir'aun yaktumu iimaanahu iimaankiisa qarinay ay yaqula rabbi yalla macna waa kii dacwada gutay asagoo iimaankiisa qarinay qofka marka hadii ay la gaarto heer naftiisiiba la dilayo laga awood badan yahay markaas oo kale baraa'adiisii uu qarsan karaa ma aha inaan leenahay baraa'ada ma jirta waqti la qarin karo ma jiro waana kufri waxaas waa buutaan iyo propaganda uu tarwiijiyay ninkan xasan baraa'ada marka arintan istidaacada hadda kuma tacalluqda waa waxyaabo oo macnaha sideeda aan ku tacalluqa tuqiyada iyo ikraaha iyo idiraarka xaaladaha marka la joogo waa xaaje hadda nagaga xiran ma laha baabkan kaliya waxa la fiirinaya qofka meesha uu ku daray hadii uu ku daro baraa'adii aslu diinna marar uu qarsan karo way iimaanaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala sida aan ogsoonahay wuxuu aayaad cad ku xukumay mushrikiinta dadka ilaahay qeyrkii caabudaya kitaabkiisa munazalka aayaad cad kitaabkiisa muhkamka wuxuu ilaahay ku xukumay gaalada dadka mushrikiinta ahlu shirkiga kufr ayuu ku xukumay waxaan ogsoonahay ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku xukumay mushrikiinta kufri in badan oo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala kamid ah waxa kamid ah aayaadkan ku jira fi suuratil mu'minuun ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال من اللي بانيان بالي الله مقعاوي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار معناها مد قال لي بدن إلهي سبحانه وتعالى ما هنونين وبينين بدن أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قال هذا وحن وديارين بوليه سبحانه وتعالى جهنم وحن وديارين مرتصر ماشى لو شرفه لو سو دوينه waa جهنم sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegay kitaabkiisa ku sheegay shirkigu inuu san daliil lahayn aayad fara badan waxaan ugu filan aan soo qaadanaynaa waman yad'u ma'a allahi ilahan aakhara la burhana lahu bih qofki ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaah kale la barya oo la caabudo wax xujo uma haysto macnaha suldaan iyo xujo uu helaya male marka Allah wuxuu yiraahdaa raaytu ma tad'uuna min duunillahi ka warrama waxaad alla sakadii baryaysaan oo caabudaysaan aruni bal tusiya maada khalaqu min al-ardi waxay abuureen arlada kamida am lahum shirkun mase waxay leeyihiin wadaagsi fi samaawaati samaawaadka cirarka mi ilaahay la wadaagan ilaahay wuxuu yiri tuuni ikana bi kitaabin min qabli hada kitaabkan ka horeeya aw atharatin min ilmi ama athara oo ilmigi hore in kuntum saadiqin
lama soo helay marka ahlu shirkiga ma soo helayaan shirkigooda daliil uma soo helayaan marka Allah wuxuu yiri hal cindakum min ilmin fatukhrijuhu lana aktina ma hada ilmi ad soo saaraysan ad noo soo saaraysan in tattabi'una ma tattabi'una marra aysan illa dhann wa in antum illa takhrusuna mal ayad been awaalaysan macnaha malad been awaalaysan wax beena ayad maleegaysan sidoo kale waxaan macnaha helaynin daliil qofka ahlu shirkiga difaacaya qofka mushrikiinta difaacaya dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala shirkigiiba xujo u waayay ilaa shirkigii waxa Ilaahay uu xusay inuu kufri yahay ahlu shirkigii waxa la xusay inaysan xujo helaynin shirkigooda aysan xujo u soo helaynin quraan fara badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu kaga hadlay sidoo kale qofka isku dayay ahlu shirki inuu difaaco doonay inuu ka difaaco shirkiga ay ku jiraan uu doonay inuu ka wareejiyo xukunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo gaalnimada ah inuu difaac ka galo qofka doonaya ma soo helayo daliil sharci horta uu ku difaaco haddaba Sheekh Xasan saad ogsoontihiin wuxuu doonayaa ummad shirki akbar ku jirta oo Ilaahay qeyrkii u nadaraysa Ilaahay qeyrkii u qowracaysa Ilaahay qeyrkiis tala saaranaysa oo xukunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qeyrkiis kaga raali noqotay shariicada Ilaahay sharci aan ka sharci dhigatay dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa dhabarka ka tuuray baa wuxuu doonayaa inuu difaac ka galo arinta marka daliil uma soo helayo sharci ah markuu waayo daliil sharciya baa wuxuu la yimid faham aad iyo aad qariib u ah oo aad iyo aad loola yaabo fahamkaas oo dhab ahaantii ku noqonaya qadax iyo iftiraa ku noqonaya imaamkii macnaha tawxiidka nabiga Ibrahim alayhi salaam ku ahad gudub iyo been abuursho ku ah isla markaana ah ka hor imaansho iyo burin laga hor imaanayo nabiga Ibrahim waxay uu ka qisooday kitaabkiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga qisooday ee ahaa inuu bari ka ahaa ahlu shirki iyo shirkigoodaba markaas wuxuu maciin biday uu magan galay waxa la yiri nin daad qaaday xunba cuskay meel uu aada markuu waayay Sheekh Xasan aha baa wuxuu maciin biday inuu nabiga Ibrahim ku tuuro buhtaan anbiyada Ilaahayna qadfi uu ku gano uu yiraahdo nabiga Ibrahim lam yatabarra min abihi al-mushrik wa waxaan horay loo arkin cid uu kaga dayanayna male bayaanka sida marka isaga cad arimaha sida oo cad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baraa'ada sida Ilaahay uu cadeeyay oo salafkii ay sida u qeexeen sunnadii ay sida u cadaysay tawxiid aan shirki wadanin tawxiid shirki wata inaan la ansaxayn adilada ay sida isugu raacday qofka markay u cadaato kadib waxa u muuqanaya qofka xaqdoonka ah in baraa'ada qofka ka saara ahlu shirki in laga baraa'a qaato in Ilaahay dartii loo naco la gaalaysiyo ahlu shirki kufriga ay ku jiraan lagu gaalaysiyo shirki ay ku jiraan lagu naco qofkii ka saara aslu diin in qofkaas tawxiid uu san fara ku haynin tawxiidkiisa ay nuqsaan ku jirta oo cadaanaysa qofka daalibul xaq ah waxa uu cadaanay qofka daalibul xaq qofkaas in macna tawxiidkiisa ay nuqsaan ku jirta fahamka uu fahmay tawxiidka in ay nuqsaan ku jirta bal waxa uu cadaanaysa diinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu san ku sugnayn diinka Ilaahay inuu san waxba fara kaga haynin saddex arimood marka la fiiriyo arinta koowaad waxa weeyaan إيمان صحيح ماله قفكاس هي توحيد صح ماله اعتقادك أو اعتقادية إنه أنصحي إيمان أو وذنين بغض الشركي طلبات نبي الله إبراهيم قفك كأن في براءة ونبي الله إبراهيم كما براءة قادن أبي سيري سيدا لوجي قف كان براءة الله إن إيمان التوحيد ماله وحيلم التايمرك قف إيمانك إسلامك كأن في نبي الله إبراهيم قف إيمانك إسلامك نبي الله إبراهيم كأن في إسلام توحيد إسلام وسنوان سعين دينك بنامك كتاجين تصدحات وحو ردنا يا قفكاسو وحو ردنا يا قرآنك إلهي سبحانه وتعالى وحو بيننا يا آيات إلهي سبحانه وتعالى يا قرآن كتير هذا بدن عديي براءة نبي الله إبراهيم وكبرها قوم كيسا يا بيس يا بغض يا نعيب شيء وأموجي نبي الله إبراهيم تول كيسا إلا معناها دب كجردين إلا أي دب كجردين أبيس إلا وكجهمية إنه رجع كل رجميه قفك قرآن كأردي عن علمنا وحدينا وباقي هذا ما يجرته وحن هذا نقلنا مسألة استغفارته هي بيانك أهل العلم أي عديان معناه عدينت أهل العلم أي عديان مسألة استغفارته نبي الله إبراهيم أيضا جرتي براءة قادش أو كبراءة قاتي قال لماذا أبيس يتلكي أي كجرين هذا نوحو أحمد استغفار ويدي أبيس أنت قلنا لا بمعنى واحد لقوا ذا بالي أرنتاس أيضا كي سلف ككوفة wuxuu u dalbayay aabihiis hidaayo iyo maghfira arrinkaana wuxuu ahaa mid banaan sida ka dhacday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ابن عباس وحو ورنيا مركو جو آيادان وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين آياداس مركو فسيريو وحو ليه فكانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية دمداف بأوي دين جيرين إلا أي كسو دكت آيادان فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم مركي سودكتي وحكي استاغين إني دمداف ويديان أموات دودا ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا لغمنا الريبينين دمداف ويديان كوا النول إلا أي كدنتان ثم أنزل الله كذب إليه سبحانه وتعالى وحسود جي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ما هين استغفارته ونبي الله إبراهيم أبيه سويديي إلا عن موعدة بلن بيهيد وعدها إياه وبلن قاضي ماشاس مفسرين تدبها الله قول نقضه مفسرين إن بدأ waxay ku fasirayaan nabi Allah Ibrahim inuu ballan qaaday ma ana aabaha laftigiisa inuu yiri waa islaamaya arinkaana inuu aha arinka ku xambaaray nabi Allah Ibrahim inuu istighfar aabiis u weydiiyo ابن جرير الطبري وإمام المفسرين وحو ليهي يقول الله تعالى الله وحو ليهي وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال إلهي ما أهين مد إذن كحكمية ودمداف ويدين ودمداف ويديسان موتدين معنا ذاتكي نيدنتي دمداف كادو ويديسان إلهي إذن كما حكمين مشركين تاها بعد إذن كما حكمين بعد إذ رزقكم كدي مركو إلهي إذن كو إرزاقي الهداية هداية إلهي إذن كو إرزاقي ووفقكم وإذن وافجي للإيمان به وبرسوله إلهي وإذن وافجي إنا أصغر رميسان رسول كيسان رميسان حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا إلا إلهي إذن سوهر مريون نهي وإذن كغرهب يعرنكاس ومركا أتكتكتان وتكيستاكتان وحيري فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه انتو سن إلهي سبحانه وتعالى إذين عدينين دبسك إلهي وإذين كرهيو أرنكاس بالنهي عنه ريبيد وإذين كرهيبي ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه كدبنا أتكتل اللوذان إلهي النهي يقيسي وقلت اللوذان معنى أتكتل اللوذان نهي إلهي وإذين كرهي ونت اللوذان وحو إذين كرهيبي قلت اللوذان فإنه لا يحكم عليكم بالضلال إلهي إذن كما حكميو بعد إذن كما حكميو فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي وحير ابن جرير الطبري طاعة هي معصية وحكاء هذان أمر كأي نهيك وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر ولم ينهى عنه وحير قفك وحن لفرين أما أن لقربين فغير كائن ووحا معناها كائن بهم ووحا جريمبه إنه وحا ضيعه أما أو عاصية وحا لأمرين لقربين marka kuma dambaabay macna wax dambiyood ku jirteen malaha inta uusan nahyiga soo dagin sidaas uu ku fasiray ibn Jarir al-Tabari tafsiirkiisa mujalladka 14 safxada 536 kadalika ibn Kathir mujalladka 2 safxada 306 Sa'id ibn Musayyib asagana wuxuu warinayaa xadiiskan ka sheekeynaya Abu Talib markii ay geerida ku soo xaadirtay Sa'id ibn Musayyib waa sayyid at-tabi'in wuxuu ka warinayaa abiis لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وحيري مركي كسو حاضرت أبا طالب جيردي أفسشدي النبي صلى الله عليه وسلم وحوي من أبا طالب مركاسا وحو أركي إذا لجوغان أبا جهل عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة مركاسا النبي وحيري صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وحاتر هذا لا إله إلا الله كلمة ده أن كاغقر الله أكتس كلمة إيه ده أن كاغقر الله أكتس ده وحي أفهمين كلمة ده حدو أبو جهل أخرين أو طالب وأخرين لا أخرين تبسير وكبت بعد لها ما شدن بي حديث كان لقى فهمي إن يسان أخرين أخرين كلية عين ويودي ده أبو طالب فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أبو جهل بقى فهم سنة وعبد الله بن أبي أمية فهم سنة أبو جهل ورأس الكفر فهمي إنيسان شهادة أهين الفات كلية وحيري أترغب عن ملة عبد المطلب موحدنا عيسى دينتي عبد المطلب هل كان وحالك فهمي إن أبو جهل فهمي إني تهي دينتي عبد المطلب أو لقد تغير دينتي أويال أو لقو كفرين سي جملة إن لغا سو تغير إسلام كان لسوق لي صادرت النبي صلى الله عليه وسلم aad buu ugu dadaalay inuu ku hadlo ku kalaamo maadaama ay ka dhalanayso inuu ka soo fuqayo diintii ajdaadiisa iyo abayaashiis
فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة نبي كموسى سولين إنه بندقة يكون سوء مقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب إلا أبو طالب كير هذا الكيسي قدام بيجي دينة عبد المطلب بن كسجنا معناه دينة عبد المطلب بوسو كسجنا هاي وأبى أن يقول ودي ذا إنه يراد لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك وأن كنت بدأ ديني هدي أن لقاك ريبين بوير النبي صلى الله عليه وسلم إلهي مركز وحسود جي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم النبي أمها بونا والله معها انت الله وحديبه inay dambi dhaaf u weydiiyaan mushrikiin qaraabo u dhow baha ahaadeen kadib markay u cadaatay inay asxaabul jahiim yihiin aba dalibna si gooni waxa loogu soo dijay innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin aba dalibna sidaas si gooniya aayadkaas si gooniya ugu soo dagay muraadka marka waxa weeyaan in laga fahmo meeshan in rususha ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u caroodeen muraadka waxa weeyaan meeshan in loo fahmo in rususha ilaahay ay nacaan ahlu shirkiga ku nacaan shirkigoodii kagana baraa qaateen shirkigii ay ku jireen ayaga iyo shirkigoodana isla tuureen markii laga reebay inay dambi dhaaf u weydiiyaanna inta laga reebin inay dambi dhaaf u weydiiyaanna way u dambi dhaaf weydiinayaan بمعنى أنت أن لقرب الاستغفارتنا استغفار بي أولا إيمانايين ودمي داف بي إلهي سبحانه وتعالى أوي دينايين مركو سودقي التحريم كي استغفارتا مركو سودقي إن لو ديدي إن دمي داف إلهي أوي ديانا وحي كقبر أقاتين كالتقيتان أي كالتقيان إن دمي داف أوي ديان إلهي سيدا أحكامتك الله الشريعة عدما معنى وحي فروع وحالو كسيها وحوال بمركو سودقي مركا إنو كوب اللاباني معنى مركا كو عمل فليس سيدا درادت بأنبياء وحي آيان مركو تحريم كسودقي استغفارت إني حرام تاي إن أهل الشرك استغفار لو لي ماذا وإلهي دم داف لو ويدي مركاسي كاستاغن أرنك أولجيتك نبتا الربعين معناها اللي فهمنا وإنتس أولجيتك وحويان خصوص إني نبعايان أهل الشرك كنا نبعايان شركك كيانا براقاتين أيغا شركك هذا إسلام رهان تاسن أنتي أن لو ديدين إني دم داف ويديان أمواد دودا dadkoodii inta inay istighfaar u weydiiyaanna way u weydiinayeen intaan loo diidin markii uu tahriimka soo dagayna waxay kaga baraa qaateen istighfaartii bay ka tageen arrinka la rabo in la isla fahmana waa intaas haddaba waxa weeyaan waxyaabahan iddicaa'aadka sheegashada xasan uu sheegtay macnaha falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min waxaan ka qaadanaynaa uu yiri mafhuumul mukhaalafa wuxuu yiri markay u cadaatay nabiga Ibraahim inuu aazar yahay cadow markaasuu ka baraa qaatay waxaan ka qaadanaynaa uu yiri mafhuumul mukhaalafa oo ah nabiga Ibraahim intii ka horeysay bari kama ahayn mafhuumul mukhaalafa suu la yimid ninka la yiraahdo Sheekh Xasan koo been abuuranayo arrinka marka uu sida u sheegtay baa waxaan barbar dhigaynaa aayaadkan soo socda bal in ayagana mafhuumul mukhaalafa laga qaadan karo iyo in kale آياتك وحويان وحنكسونا إلهي سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة إنه إلهي سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون labadan aayadood aayada horena Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu baray oo noogu sheegay kuwa aan diinka nagula dagaalamaynin oo dacni fi diin aan ku jirin oo diinka kugula dagaalamaynin guriyaha aan naga saaraynin inaan u baarino sameeyno macnaha qaraabayntii inay leeyihiin oo ihsaan in loo sameeyo aayada dambe Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naga reebayaa in aan ka wali dhigano dadka nala culuubaya oo guriyaha naga saaraya oo isu kaalmaysanaya saarideena oo dadka ahlu tawxiidka dhibaya oo diinka dacninaya in laga wali dhigta ay Ilaahay ku nahyinaya ma laga fahmaya marka mafhuumul mukhalafa aayada hore oo ah maadaama la yiri u baarinimo sameeyo kuwa aan idin saaraynin kuwa aan nasaaraynin oo noob macnaha ihsaanka noo sameeyay waan ka wali dhiganaynaa inaan ka wali dhiganaa laga fahmaya ma la dhihi karaa مفهوم المخالفة سيداسة ملال إيمان كرا
jawaabtu waxa weeyaan waa maya labada aayadoodba marnaba lama dhihin macnaha gaalaha laga wala dhigto marnaba lama dhihin ilaahay subxaanahu wa tacaala naga muusan reebin kuwa aan la dagaalamaynin oo guryaha aan naga saaraynin inaan u baarinimo sameyn inta bisa laga qaadanaya aayadda hore mafhuumka marka laga fahmay labada aayadoodba meel ay soo galayso in laga wala dhigto gaal ma jirto laakiinse waxa weeyaan aayadda hore kaliya wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan naga reebaynin kuwa aan diinka nagula dagaalamaynin guryahana aan naga saaraynin in macnaha aan u baarinimo sameyno intaasun ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan naga reebayn marka nabiyullaahi ibraahim inta marka aabihiis uu duceynayo waa inta aysan u cadaanin cadaawadda aabihiis uu ku jiro macnaha waxa weeyaan waxaa meeshaas laga fahmayaa in nabiyullaahi ibraahim intaas hore dhan aysan u cadayn markaan dambana waxa la amray waxa istighfaartii inuu ka istaago ee lagama fahmayo bari kama ahin lagama fahmayo sida aayadahan hadda aan looga fahmaynin mafhuumul mukhalafa oo macnaha in oo gaalada oo dhanbo qaar laga wali dhiganay ay jiraan amal aan looga fahmayn hadalkan marka ma ka qaadanaynaa mafhuumul mukhalafa ma ka qaadanaynaa oo mafhuumkiisa mafhuumkan hadda uu la yimid sheekh xasana wuxuu la mid yahay mafhuumka ay niman carbeed ka soo saareen aayadan ku jirta fi suurati al-baqara niman carabta kamid ah oo masaarida ay kamid tahay dad kamid ah qaarkood oo carab ah waxay la yimaadeen faham aad iyo aad u xun fahamkaasoo aayadahan ku jira innal ladina aamanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man aamana billahi wal yawmil aakhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun markaas waxay yiraahdeen yahuud iyo nasaarada waxa weeyaan waa dad muslimiin ah cabsi uma sugnaanin mana murgaayaan qolo walba oo amal saalix sameynaysa yahuud iyo nasaarada iyo waxa soo dhan soo galay yiraahdeen aayadan ana sheegaysa yiraahdeen waxay iloobeen oo ilqeeyeen oo iska tuureen oo ka tageen quraankii dhanaa ay cadeynayay yahuudda inay gaala yihiin nasaaradu inay gaala yihiin qofka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala diin aan ahayn diin ahaan u dalbo aayadda aan ku furfuranaaba cadeynaysa oo ardaadiqaha ka dhigaysa waman yabtaqi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khasirin bal wa mas'ala ijmaa'a yahuudda iyo nasaaradu inay gaala yihiin yahuudda iyo nasaaradu inay gaala yihiin waa mas'ala ijmaa'a waxa sidoo kale xoojinaya xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu yiri macnaha qof ma maqla magacayga yahuudi ah wala nasraani ah oo ima rumeyn waayo illa kana min ashaabin nar in la yiraahdo marka waa ashaabul janna amal saalix ay ku tagaan waa madhab macnaha faasid ah mafhuumka qaladka marka nimankii la yimid ayuu marka shabahaya hadda fahamkiisan fahamkan xasan wuxuu u ekaanayaa mafhuumka ay nimanka la yimaadeen maxaa yeelay kitaabka inaysan muslimiin ahayn waa arin la og yahay innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi naari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya khalqiga ilaahay ku sharta badan waa leeyahay iyo aayadihii kale dhahay laqad kafara alladina qaaluu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ويكفرين بالين اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وحالك كم وقت مرك مفهومك قوة حسان هي قياس كيسو إنه يهي قياس كي مشركين تم معناها كي أصدق ودادك كنت المامي قياس كي مشركين تم وحلا مذا وحسان مرك الليم wuxuuna kala mid yahay wajhu shabaha laga shabahay waxa weeyaan uu kala mid yahay mushrikiinta qiyaaskoodii inuu ka tagay nusuus cadcad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baraadiisa uu ku cadeeyay billahi Ibrahim Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu bari ka yahay qoomkiisa inuu bari ka yahay Ibrahim aabis uu bari ka yahay uu ku cadeeyay inuu ka tagay oo markaa yiri falama tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu ba waxaan kala dhaxbahaynaa mafhuumul mukhalafa hatta wax kaga horeeyna ma laha arrinkaas wax kaga horeeyna lama soo helayo hadaba anaga waxaan haysanaa oo aan cuskanaynaa adilla kitaab Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hatay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo fahamkii salafka wa adilla muhkama mutawaatira sariixa manduqa adilla macna muhkama sugan ila nusuusta waxa loo qaybiyaa muhkam iyo mutashaabih muhkam baan haysanaa waa sariixa way cadcadiin waa manduqa oo quraanka sidoo u kalaamay waa mafhuum marka in looga tago manduq انت لا كان معنى انت لا كان حتى ما قبوا اصول الفقه ما قبوا وعن هيسنا ارماس معناها ادله محكمه متواتره صريحه منطوقه ان بالله ابراهيم عليه السلام وبركه قوم كيس يا ابيس با هدبا
ma banaan tahay in laga hormariyo mafhuum mukhalafa in laga hormariyo adiladaas muhkamka oo mutawaatirka oo sariixa oo manduuqada in laga hormariyo mafhuum mukhalafa مفهوم المخالفة إن لقاه هرمريو أو لقاه هرجيو أو قرآن كأن لا يسكن التيرو ددوينها بالهفيريان وحجرتك قرآن كلا سبحانه وتعالى عدي وحكت غانا هاي سمي زنت أدلة اسمه حكم كا أو متواتر كا معناه عن كذا آيات عد أو كشة كان براءة نبي الله إبراهيم وكبر يا أبي يقوم كيسوا عاونا ناخرين ما لقاه ارتجي كرا مفهوم المخالفة هذا لو مفهوم كاسقف علماء كمدة أو سلف كي خلف كي كمدة مجرو قف يري isaga macna qofku kaga dayanaya male waxaana jira qaacida usuuliye ah oo dhahaysa al manduuq muqaddam ala al mafhum manduuqa waxa laga hormarinayaa mafhumka oo manduuqa la hormarinaya kama huwa macluum fi usul al fiqh sida usul al fiqh aan ku naqaan macna oo macluum ah lama soo helaya hal mufassira oo mufassiriinta quraanka kamid ah oo ku fasiray nahyiga la reebay istighfaarta nabi ibraahim laga reebay markaas laga reebay wixii ka dambeeyay kaliya ayuu baraa qaatay oo markii koowaad uu baraa qaatay waxay ahayd istighfaarta markii la reebay mufassir waahida oo ku fasiray lama soo helayo kadalika waxaan la soo helaynin in rusushu aysan ahayn dad nacay ehlu shirkigooda ku nacay mufassir ku fasiray ayadana lama soo helayo ee waa baadi cusub oo aakhiru zamankan la yimid ninkan sheekh xasan ah waxaan ugu yeeraynaa qof walba oo i'tiqaadsan nabi ibraahim inuu san aabihi ka baraa qaadanin inuu isfiiriyo hadda waqti kula siman yahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala loo noqdo oo quraanka beenintiisii bay noqonaysaa quraanka la beeniyay bay arintan noqonaysaa dhabaantii waxay arintaas noqonaysaa qofkii i'tiqaaday nabi ibraahim ma baraa qaadanin quraankii oo la beeninayo arinka marka in laga toobad keeno qofka arinka i'tiqaadiyay waa arimaan ugu yeerayno waxaan kala dadka ugu yeeraynaa in qofna uusan qof oga tagin kitaabka Ilaahay raacitaankiisa iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhaqankeeda qofna inaadan oga tagin qof walbana inuu ogaado amaam Allah in birta kamaal lagu weydiin doono al-Qur'aanu hujjatu lak aw alayka nabiguna sallallahu alayhi wasallam sida ku sugan xadiiskii Abu Hurayra xadiiskii laga warinay wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam تركت فيكم شيئين لما شيء بعد كذا تجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما أنت أضحيستان لبعض الشيء ومعي كتاب الله وسنتي كتابك الله هي سنة يدوي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مركزاتك أنت هيستان ملوا ميان وحنا لجارة يا حلي إلهي سبحانه وتعالى أريد دونه ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ميدان هين آيات كيغا كوا ليدن كدل أخرياء مركا أيضا بينين قد كانت وحي آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون وحي آيات كيغا مثل ليدن كدل أخرياء مركا ساد عربتيني النقطين وعكال الله سبحانه وتعالى يري سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أسبابها ذاتك حق كدوة وكاللحية وكبرك يسلوينك بني آدم محو كبرا أصغى صومرين مجرى بول مرتين ذاتك ونواناك سناقار كم إذا سيدا يجري وحان كدوة يابو الله يري آيات كيغا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق كوا أرلدا اسكو كبرنا حق درو وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وحكست هذه الود الأخرى آيات الله شيغو مروا مينيان وإن يروا سبيل الرشد ودد هانون كهدي الله شيغو أو يركان كما دغانيان جدكي لو هانوني لها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا جدك بعدنا بي كسميسانيان ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا أرنكنا وحسدا كن نقضي آياته إلهي بي تكذيبيين وبينيين وكانوا عنها غافلين كوا حق إلهي آياتها إلهي كوا هالمنصن بأهايين وحكى إلهي سبحانه وتعالى يري ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وحان أولاني مددك كتاب فصلناه عن كوكلا دقدقنا على علم دشيس هدى ورحمة هانون الرحمة لقوم يؤمنون دت رمينيا وحال يري هل ينظرون إلا تأويله وحي سغيان تأويل كيس مويانه يوم يأتي تأويله مالك أيما تأويل كيسة فسر كيسة
يقول الذين نسوه من قبل ضدكي كتابك إلهي كسو عمل فلواي أو إلوبي وحيديه دونان قد جاءت رسول ربنا بالحق وعي رسول ربي إنه لي ماذين حق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا كوا نو إرجية من نصقنا ذن أو إرجنا قاده أو نرد أمنا لعليه فنعمل غير الذي كنا نعمل دين لأنتي أن كسر بحنه أو أنكو عمل فلنا كتابك إلهي هذا الله محيري قد خسروا أنفسهم نفتوا ذي خساريين وضل عنهم ما كانوا يفترون وحا كلوا ما يوحي أي هايين كوابين أورتا افتراغا مركوا لسكت بإيمانيا براء من الشرك وآله شرط لصحة الإيمان معها الإسكمربو قول كليا إيمان لقو قبنيا والسجد بإيمانيا حتى الاستبقبته إلهي وحيري حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون مركي ماذا بوحال رايا آيات إلهي باد بينيسين علمنا كميدا كوبين أم ماذا كنتم تعملون محال عمل فليسين مركي أرماها سائمان دونا hadduu ilaahay yiraahdo marka qof walba hadduu waqti haystaba qabto hadda inta berita ka maalin uusan quraanka xujo kugu noqonin ila nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam alquranu hujjatu lak aw alayka waxaan macnaha ka codsanaynaa dadka dullaabul cilmiga iyo qofkii xaqdoon ahna in ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis ay u baaraan masaa'ishan hadda aan sheegnay bal sida annaga aan sheegayna inay tahay iyo sida xasaan uu hadalka u dhigay inay tahay مسائشاس waxaan u cuskarnay oo aayad leh oo ahadiis leh oo aqwaal culimo leh ma sidaas sax ah mise in la yiraahdo nabiga ibraahim shirki kama baraa qaadanin iyo eelkiisa tullaabul cilmiga aad ha u fiiriyaan hadalladan talbiisaadka macnaha talbiisaadka oo ninkan sameeyay inta kale dhimanna haduu ilaahay yiraahdo sidaan cusayb waa dhowr iyo 10 qodob waxaan kaga hadli doonaa xalaqaadka soo socda talbiisaadka inta kale noo dhiman haduu ilaahay yiraahdo waxaan marka u dambeeyay macnaha aan ku khatimi doonaa masaa'il cilmiya oo ay ku qaldamaan aalaba dadka cilmiga sheegta ay ku qaldamaan ayaan iyadana ku soo khatimi doonaa haduu ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiiq